فضلا سبسكرايب قاعد ميدك تعداد على كويستو بدي هذا سبسكرايب كله حتى فرتني حتى مشغول كاتاي فريرده وساعد هذا ما كاغلay سمعنا محمد أحمد بكال أو عراق مقعدير أرنتاس أو لحديدي إن سومالان لغو عسرية أما بلغا شكت هطبا إن فنانكا حتى يا لجوغنا إن بالأرنتاس نوغور بدر كوسار واد محسن تهي waxaan caaw halkan soo fadhiistay horta ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin gaar ahaan ummadda reer Somaliland sida fiican uga dhiidiyeen horta Badriyo wax cusub dhacdo cusub ayaa ahayd hawshaasina way jirtay weerarkaasi uu jiray la igu soo qaaday oo gawaadhi dad badan ka buuxaan la soo weeraray habeen hore ma jirtaa cid aad arinta weerarka aad u aaneynayso ama aad ka shakisan tahay wallahi Badriyo horta xilli dambe ahayd goor dambe ahayd aniga iyo Cabdiraxmaan Caydiid oo wada socona gurigan ka soo baxnay dabeedna ilaa 3 gaari ayaan laga soo daatay baadeen anaguna markaan naftaydii badbaadino ayaanu isku daynay alxamdulillah horta ilaahay naga badbaadiyay yahay Soomaaliland sidaad ogtahay fawda ma ahan nidaam baa ka jira waad ogtahay ma jirtaa hay'adaha ammaanka ma u gudbiseen arintiina Badro walgu horta hawsha waa lagu gudo jiraa dawladana baala Saciidi waxa ka dambeysay waa lagu gudo jiraa way su'aashaday ugu dambeysay aad iyo aad marka hore u mahadsan tahay su'aasha bulshada isweydiinaysa ayaa ah in fanaanka aad ogtahay BK oo Kenya loo soo diiday ayaa leeyahay arintan iyo xiriirkeed iyo qorshaha Facebook-yada arintaas ayaa ku jirta maxaad ka leedahay si kooban wallahi horta taa hal ereybaan ka oranayaa Badriyo aan waxaan leeyahay horta fanka siyaasadda laga daayo fankiisa siyaasadda meel moodo galaan nagu faanin baan nahay ereygaasaan oran lahaa fanka iyo siyaasadda hala kala saaro waxa jira dad badan oo adiga ku taageersan oo si weyn qaarkood arka mu jireen baraha bulshada qola kale si kala u dhigaysay fariinta bulshada ku taageersan ee Somaliland aad u diraysaa maxay tahay wallahi waxaan u dirayaa waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin ani Hargeysa waa magaaladeedii waan magaaladan ku dhashay ku dhaqmay ku koray waa dalkaygii hooyo waxaan leeyahay aad baan idinku mahadcelinayaa meel kasta oo joogtaan aad baan idinka mahadcelinayaa malay mar labaad iyo mar saddexaad bulshada reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan annaga wada soconay faahfaahinteedina uu sheegay Maxamed waana lagu daba jiraa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda meel kasta oo dunida joogaan arintan ka ficil celisay haddii af noqoto haddii ficil noqoto iyo haddii baraha bulshada noqotoba aad baan u mahadsanyiin waxaan ku darayaa oo kale in fanka iyo la kala saaro siyaasadda oo fanka la siyaasadeynin fanka iyo siyaasaddu isma geeyaan mana iskalaan aad baa u mahadsantiin dhamaantiin arintaasina insha Allah bidnillaahi kariim waxay noqon doontaa arin dadka reer Somaliland ay wax badan macnaha ay kaga tusaale qaataan aad baa u mahadsantiin dhamaantiin